Vladimir Putin waa mid ka mid ah hogaamiyayaasha ugu awoodda iyo saameynta badan adduunka ka oo kursiga madaxweynaha dalka Ruushka ku fadhiistay 2012 ka horna 1999 ilaa 2012 ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaas. waa hogaamiyaha ugu mudxileedka dheer dalalka Yurub marka laga yimaado Alexander Lukashenko Belarus. muuqanse uga sheekayn mayno taariikh nololeedkiisii ha yeeshee kaliya waxaynu kuugu bidhaaminaynaa la xaqiiqo aadan ka ogeyn ninkan ka hor inta uusan siyaasadda ku biirin ahaa sarkaalka sare ee sirdoonka. milkiilaha koox kubadeedda Mareykanka ka dhisan ee New England Patriots oo sheegay in Putin uu ka xaday fargal Super Bowl ah kadib markii milkiilaha kooxdan Robert Kraft booqday dalka Ruushka sanadkii 2005 wuxuu Putin tusay fargalkiisii qiimaha sare jooga oo Super Bowl 39. ninkan ayaa yiri Vladimir intuu qabtay fargalkii ayuu yiri kan cid uun ayaan ku dili doonaa kadib jeebkiisii ayuu ku riday fargalkan jooga $25,000. sanado kadib Senator John McCain ayaa ka codsaday Putin inuu Mareykanka dib ugu soo celiyo fargalka hase yeeshee Vladimir waa uu inkiray in weligiisba arkay fargalkaasi. balse shabakadda New York Times ayaa warisay in fargalka lagu camray masxafka Kremlin-ka. Putin waa hogaamiyaha ugu waqti ilaalinta fiican xilliga balamaha muhiimka ah. ninkan waxa uu ku adag yahay ka taxadirida waqtiga markuu la kulmayo dadka muhiimka ah. tusaale ahaan markii Pope Francis dalkan ku tagay booqashadiisii ugu horeysay Putin in ka badan hal saac ayuu ka soo hormariyay waqtigii jadwalku ahaa. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayuu sugayay muddo ku dhow 3 saacadood kulankoodii 2010 halka sidoo kale muddo dheer ka soo hormaray waqtigiisii balanta kulankiisii boqorada Ingiriiska ee Queen Elizabeth II. abdhaqankan ayaa la sheegay inuu yahay mid caado u ah hogaamiyaha Ruushka taas oo ku muujinayo sida uu adag yahay ilaalinta waqtigiisa. waxaa la rumaysan yahay inuu haysto balaayiin dollar marka laga hadlayo hantidiisii lacageed si dhab looma ogo taasi waayo ma jirto xog si rasmi ah u daahqaaday arrintan. hase yeeshee sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda Ruushka oo Putin u qaabilsanaa arrimo la talineed ku qiyaasay raasmaalkiisii lacageed $200 ilaa $300 bilyan oo dollar taa oo ka dhigaysa mid ka mid ah hogaamiyayaasha taajirada ee adduunka. dhaqaalaha ugu badan waxa uu ka soo galaa shirkado shidaal oo qarsoodi ah. saaxiibtinimada Putin iyo jilaaga Mareykanka ee Steven Seagal. Putin waxa uu saaxiib dhow leeyahay Steven Seagal oo ah jilaa iyo nin ku caan ah ciyaarta martialka loo yaqaano ka oo ka soo jeeda dalka Mareykanka. xog ayaa tilmaamtay in Putin uu mar ka dalbaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama inuu Seagal u magacaabo qunsul sharafeed Ruushka u jooga dalkaas ka oo door ku yeeshay hagaajinta xiriirka labada dal balse Obama ayaa arintaasi kaftan ahaan u qaatay. isugeynta qiimaha lacageed ee saacadihiisa oo dhan waxa uu isticmaalaa 4 saacadood ay leeyihiin shirkadaha saacadaha sameeya kuwada ugu qaalisan waxaana isugeynta 4 saacadood qiimahooda lagu qiyaasay $700,000. Vladimir waxa uu furay xaaskiisii hore kadib markii la xiriiriyay inuu saaxiib dhow leeyahay gabadha wadata biladda Olimbikada ee Alina Kabayeva. inkastoo nolosha qoyskiisu ay tahay mid qarsoon ninkan haddana waxaa la sheegay xaaskiisii hore ee lagu magacaabi jiray Ludmila oo guursaday sanadkii 1983 isla markaana u dhashay 2 gabdhood uu u furay arrin la xiriirta saaxiibtinimo la wariyay inay dhaxmartay gabadha jilaaga ee haysta biladda jimicsiga Olimbikada ee lagu magacaabo Alina Kabayeva. Alina ayaa dhashay wiil iyo gabar oo la sheego inuu Putin aabahood yahay balse ilaa 2009 oo asaawahoodii la wariyay xiriirkooda waa mid qarsoon.